waxaan la hadlayaa dhammaan dhalinyarada Somaliland meel kasta oo joogto gaar ahaan kuwa dalka walaalayaal waxaan la hadlayaa 15 jir ilaa 40 jir inta u sareeyo waxaan kala hadlayaa dantooda walaalayaal waynu dhaafnay nidaamkii beelaha waynu dhaafnay nidaamka xisaabeed been mareynaa waxaa kala dalbataan barnaamijyada xisbiyada kala dalbada oo inta naaqashtaan dantiina ka dhaxeeya walaalayaal dantiina waxay ku jirtaa oo aan aad u naaqasho aad u eega u faaqidi xisbiga wadani kamaanta inuu wada kara wadani beelina ma wada karto nin maanta beel ku ololeynaya bari muxuu inoogu qabtaa waa wada artaa maanta beel ku ololeynaya walaalayaal waxaan leeyahay wadanka barkii kulmiye qabsaday tahriib cusub oo daaba bilaabantay walaalayaal qaxta bilaabmi ilmaada rayaan waxaan idin ka codsanayaa inaad codaysaan xusbiga horumarinta dadka iyo dadkiina oo xusbiga wadani waxaan aad halkan si wacan oo deebi kuru yahay aan uga naqashaya dhalinyarada haweenkayga walaalayaal oo codaya xusbiga maanta talada dalka waxay naga bedeli karaa 7 sano inay haystay xisbiga kulmiye 7 sano Axmed Maxamed Silaayo uu muujiyay wax qabad asaha yeeshay waxa uu wax ka